ku kooban ama maxaabiista jeelka weyn ku kooban waa arin dalka oo dhan ka jirta oo iminka wax la soo sheegayaa koonfurta Burco deegaanka la Balweyn waxa lagu tacaalayaa 70 qof waxa ku dhintay 3 qof baa ku dhintay sheekh waa lagu tacaalayaa qof baa ku dhintay waxa weeye waxa wanaagsan horta arintu international marka maalinba halkii wax ka dhacaan hadan ku yaacno ama wasaaradda marka khusaysa ka hadasho maaha wax umada anfacaya ama umada wax u qaban karaya wasaaradda waxa qaabilsan wasaaradda caafimaadka guud ahaan iyada qaabilsan ka jeelka ku jira iyo ka hawdka jooga kama hadal hatta waxan waxa rasmiga yihiin go'aan cad laga soo saarin anagu ma aragno ama anu shakhsiyan ma arko waxan yihiin shambiyad waayo shambiyad 12 saacadood gudahood wax ku dila mayno arag tirada inta leeg waliba waxan waa koleer weeye way hay'adaha qaar baa ya sheegay inay isku jiraan laakiin isku ma jiri karaan oo koleer weeye waxan markii hore waxay nooga soo gudbeen xadka Itoobiya nooga soo gudbeen oo Itoobiya ka bilaabmeen waqtiga abaaraha wax kasta uu yahay hal mar lama sameeynin wax la yiraahdo karantiimo lama sameeynin oo xitaa aag qura lama xidhin cid ka baxaysa cid soo geysay lama xadidin national campaign wasaaradda may sameeynin dawladdu walaanka kuma dhawaaqin dawladdu walaanka xanuunka noociisa warcad kama soo saarin waxa weeye waqtiga roobabkana fiditaanku uu hawl yar yahay marka roobku da'o bacteria halkan qofkii ku saxarooday ka qaaday ayaa qofka halka ugu dambeysay dalka ugu gelisay protection lama sameeynin sanitation lama sameeynin dadka waxba lama sameeynin daaweyn lama sameeynin campaign rasmi dawladdu may qaadin warbixin rasmi lama soo deeynin marka inuu dayac baan u arkaa dayacada dalka ka jira kamid ah laakiin uma arko wax sahlan oo dhalareeysan karo wasaaradda cadaalad nama khusaysiyo Cheltone oo arrin qaran weeye waa xanuun ballaaran oo u baahan hawluhu u baahnaa in laga qabto oo wasaaraddu rasmi uga hawl gasho oo daraasad rasmi ah ka xataa alaanka guddimayno aragle oo daraasayna xanuun oo wax baan ka soo saartay oo problemka iyo dhibaatada jirta soo cadaysay ma arag markaas dawladda la heli kara magti marka waxaan u aragnaa dayac baan u aragnaa oo dayacada ugu xun waxyaabaha qaar dadku ka sii noolaan karaan qofku waxbarasho la'aanta gaajada waxba ka sii noolaan kara laakiin xanuunka noocan ah emergency-ga ee 12 saacadood qofka ku dilaya aan alaanka cid u jeeda oo miisaan ku leesinayna arag dayac baan u aragnaa waana uga taxsiinaa dadka ku dhintay inta xuseen Ilaahay baan uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo isaga awoodo